عليكم شيخ ويلير أيان ميل كهلي أو مركز أنكو قياسي 3 bilood إنو جيرو مركز أور أيان لها وحان دلي عنقي أو جيرا إلى 6 bilood يعني عنق لا أيان دلي عنقي يرجع هاي سوها لين 6 bilood ومركز جيرا ناس كأيام كديي إن النوتشيو ونيجدي ذي مساسد أيان إلى 3 jeer أقول لسي صلاة ما يجي بين كرا سؤال شكله حيل هذا هي نجاسة السحرة ذا كاذبة بيه أنت لا هي ظاهرين كرا نجاسة السحرة ذا أما كاذبة بيه أنت لا هي ظاهرين كرا يعني إلى أنت بيه أي كفلا إني ماركتي لغو طاهري وسحرة ذا كاذبة كسؤال شاسوي الحمد لله بسم الله الحمد لله سؤال كوباد ku saabsan ilmaha banaanka laga helay horta ilmaha dadaad koriso dhaqaalayso ajir badan baad ka heli midda kale midda naaska nuujintiisa waxaadiye isaga maxram idinka isaga dhigi kara waa inuu nuuga 5 jeer waayo waxaad ku dadaashaa maadaama maqaamkii hooyada aad u joogto in xataa hadduu masaasadu wax ka cabayo waxaa muuqatay dee intii bilood ee hore oo dhan ayuu masaasad ku soo noolaa adiga caanahaaga qayb ka mida masaasadda ugu shub 5 jeer wax deeqana sidaa ku sii intaa muddada aad nuujinayso intaa haddaad samayso maxram buu kuu noqonayaayo caanahaagii buu cabbay ama masaasadda ha ka nuugo ama meeshoodii asalka ahayd ha ka nuugo wixii 5 ka yari maxram kama dhigaan xadiidka caaisha muslim warinayay buuna ahaa 5 radacaatin macluumaatin yuxarimnu 5 jeeroo la yaqaana hadduu nuugo xaraam baad ka noqono wa ummahaatukum allaatii ardacnakum hooyooyinkiinnii idin nuujiyey ayaa noqon taasi waa masaladaadii weydiisay ee nuujinta iyo maxram manii noqon karaa haddaan nuujinta iyo caanasiintaa dhicin dee maxram kuuma aha saalim mawlaa xudayfa oo reerkii la soo koray oo weynaaday baa la soo joogitaankii iyo ku soo dhex jirkii reerkii maxram kamayna dhigin ilaa si khaasa isaga la yidhi ha la nuujiyo marka caana si loo siiyaba intaasi waa intaad iga weydiisay ilmahan laakiin laba kale aan ku dari lahaa ilmahan iyo carruurta la midka ah ee meelaha aabbahood aan la aqoon hooyadood aan la garanayn hal arrin oo khaladaan innagu samaynaa kadibna khaladkii dib buu ka qarxaa ilmaha waxaynu ka qarinnaa marka uu yar yahay inaadan hooyo u ahayn ama odaygaagu uusan aabba u ahayn baa laga qariyaa kadib markuu weynaado arrintaasna waa khalad abtirkii baa la siiyaa marka la siiyo daduusan walaal la ahayn baa walaal looga dhigaa dhaxaluusan lahayn baa la siiyaa daduusan maxram u ahayn oo rag iyo dumar ah baa maxram looga dhigaa ilaan dhalasho iyo walaaltinimaa laga dhigay intaasoo xuquuqoo isaga iyo faracii ka dhalanaysa iyo dembi ah dadkii arrintan sameeyey baa iska leh aduu ixsaan baad samaynaysay laakiin dembi ka badan oo laga yaabo wakhti dheer iyo furuuc inuu socdo baa kaa soo gaadhaya waxaan u baahannahay inaan ixsaankiina samayno arrintiina ka badbaadno waa reer iyo qoys uunee warkaa iyo nuxnuxdaana way socon gaar ahaan soomaali baan nahay waxaa dhacaysa mararka qaarkood unumale xilli hadda bil laga joogo su-aasheeda nairobi la weydiinayo taagnayd dhacdooyin horena dhowr iga soo mareen gabadh baa sidaa noqon
hooyaa la isaga dhigi hooyaba maantoo dhan lagu hayn aabbuu isagana maantoo dhan ku hayn xilligay guur gaadho baa waxaa imanaysa su'aala gabadhan hadayaa meherinoo walaayadeeda leh arrintii markii sheekadaa la isweydiiyo oo maxaa dhacay dammaanan dhalinoo meel baan ka soo qaaday bay noqon gabadhu xilligay guur joogtay oo la soo doonoo reerkii la weydiistay yurub intaan joogayna waxaan garanayaa 2 gabdhood oo sidaa reerihii kaga cararay halkanna dhacdaa la isoo weydiiyey oo islaantii hooyada isaga dhigtay baa ay weydiisay oo magaaladeennana waxaan ku idhi marka haddii hadda gabadha la guursanayo gabadha idinkaa wilaayadeeda lahoo cid idinka xigta ma lehe aqalla shay bil walaa baad ku yeelanaysaane gabadha guuriya hadda kahor haddaad qarinaysayna hadda wakhtigana sheegin waa dambood sheegtaba haddii kale mustaqbalka baabi'in waaye waxaad samaynaysaan baa marka 2 arrimood baan tala idinka siiyo waa midda koowaad ee magaca aabbaha ha siinina ilmahaas aabbihii ilmaha magaciisa xilligan aan joogno ilmo magacii keliya looma dayn karo waa in 3 magac la helaa waa in iskuul laga diiwaangeliyaa waa inuu berri ID iyo baasaboor qaataa ID iyo baasaboor hal magac lagu qaato ma laha aabba iyo awow magacyadan addoommada ee ilaahay loo tiiriyey ka dhiga cabdullaahi cabdiqaadir cabdiraxmaan cabdikhafaar cabdixakiim cabdilmajiid magacyada sidaasa oo 2 ahoo kala duwan aabba iyo awow uga dhiga isaga addoon ilaahay baa dhalay awowgiina addoon ilaahay weeye mas'aladaas baa ugu dhow culimmadu markay ka hadlaan ilmihii duruuftan cusub ee soo korodhay maxaa loogu abtirinayaa ibnu cabdillaahi weeye haddii la yidhaahdo addoon ilaahay baa dhalay waay addoonka ilaahayna cabdilxakiim ilaahay xakiim addoonkiisaa sii dhalay waay taasaa ugu dhow midda ugu dhow middaas weeye hooyadana magac kale u sameeya oon jirin waayo adugu mar walba been baa la sheegayaa oo adugu haddaad hooyadii iska dhigto ood isku qorto dee hooyo saxa ma tiidoo ma jirto marba haddii hooyo aan jirin la sheegayo adiga ha ka dhigin taa wixii dukumenti iyo qoraal aad ugu qoraysaan u sameeya taasi waxay daliil u noqon isagana yarida uu ku soo barbaari waad koriseen oo ixsaan iyo abaal baad u samayseene idinku labadiinnu midna maydaan dhalin maxaa lagu dhihi ilmihii su-aasha labaad oo ilmaha yar maxaan ku dhahaynaa weeye dee soomaali baa tihiinoo intaasaa dagaalli iyo qax iyo madaafiic dhacday intaasaana tahriibi iyo saxaro iyo doomo ku halligantay labadii ku dhashay dagaalladii iyo qax iyo dhibaatadii dhacday baa la kala lumoo nolol iyo geeri midna laguma yaqaan hooyadaana saasaa la dhahaa aabbahaana intaasaan ka naqaan wax kaloon ka garanayna ma laha qax iyo baalaababelay ahayd dee adoo meeshii la kala cararay baanu ku soo qaadnay dagaallada iyo qaxa dhaca ilaa xad war laga garaabi kara waaye markuu ku soo koro waalidkaa way dhinteen allah u naxariisto ilaahay dembi dhaaf u weydii wuxuu ku barbaari carruurtan ridaac iyo nuug may wadaagaan aabbiyo hooyo ma wadaagaan nin dokumenti soo ma aha marka uu yar yahayba shahaado labadaba inay dhinteen u soo saara